kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni raadraac. Waxaan shalay soo dul istaagnay tuuladii uu madaxweynuhu ku dhashay ilaa magaalada Gaalkacyo. Waxa uu markii ugu horreysay arkay magaalada Gaalkacyo, halka ayaana ahayd halkii uu ka bilaabay nolol bilaamiy ah. Sheekadeenuna maanta waxay ka bilaabmaysaa magaalada Gaalkacyo iyo isqoristii uu madaxweynuhu isqoray ciidankii ugu horreeyay ee Talyaanigii markaas waddanka maamulayay uu ka qoranayay magaalada Gaalkacyo. Waa halgan iyo hagardaamo iyo taariikhdii madaxweynihii Soomaaliya Cabdilaahi Yuusuf Axmed Allah ha u naxariistee. Kusoo dhawaada sheekada qaybteedii labaad. Aniguna waxaan ahay Cabdiqani Sheekh Cali. kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii ayaa magaalo iigu horreysay, waxaanan ku dhaygagay dhismayaasha waaweyn ee dhagaxa lagu dhisay, wadooyinka dhaadheer, dadka tirada badan oo dariiqyada isku dhaafaya, dukaanada iyo suuqyada wax lagu kala gadanayo oo aanan weligay arag. Magaaladuna waa Gaalkacyo. Iyada oo aan raalli la iga ahayn baan walaalahay iyo ilmaadeeraday iska soo raacay, kuwaas oo xoolo iib ah magaalada u soo waday. Waxaan ahaa 16 sano jir, sanadkuna waa 1950. Waxaa xoolaha waday 4 nin oo aanu 2 walaalo nahay, 2na ilmaadeer nahay. Raggaasi waxay ahaayeen niman xoog leh. Waxaa la kala oran jiray Axmed Yuusuf Axmed Yey, Dhiig Sokeeye, Aadan Yuusuf Axmed Yey, Cabdilaahi Guuleed Yey iyo Cabdi Guuleed Yey. Markii xoolihii aanu gadanay kuna dhex jirnay gadashada badeecadihii naloo soo diray, ayaanu aragnay meel lagu xoonsan yahay, halkaas oo sargaal cad iyo askar Soomaali ah oo la socotay ay dadka kula hadlayaan. Meeshii ayaanu tagnay, waxaanu ogaanay in askar la qorayo. Nin askari ah baa wuxuu kor ugu dhawaaqay, yaa doonayo inuu askari noqdo. Raggii ila socday gacmaha bay kor u taageen. Anigu weli ma aanan garan waxa laga hadlayo, balse agtooda ayaan taagnaa. 4tii ila socotay markii ay gacmaha taageen ayaa loo yeeray, waxaana la istaajiyay meel xoogaa iga durugsan. Aniga oo meeshaydii iska taagan ayaa mid ka mid ah askartii ninka cad la socday ii yimid. Wuxuu i weydiiyey in aan rabo inaan askari noqdo iyo in kale. Askarigu isagoo u jeeda tabaryaridayda iyo yaraantayda ayuu si dadban iigu dhiirigelinayay inaan askari qorto. Oo waqtigii baa ka dhacay, hal qofna wuu ka dhinnaa tirada dadka laga rabay inay Gaalkacyo ka qortaan. Aniga oo aan arrinta ku adkayn, run ahaanna aan si fiican u garan waxa laga hadlayo, baan iska ogolaaday inaan askari qorto. Askarinimadu uma aanan yeelin oo keliya codsigii askarigu ii soo jeediyey, ee waxaan ka xumaa inaan ka haro raggii aan la socday. Ninkii wuu iga tegay oo wuxuu la faqay sarkaalkii caddaanka ahaa, kaas oo dabadeedna madaxa ruxay. Madax ruxidaasi waxay ila ekayd in askarinimadii la ii ogolaaday. Markii uu ogolaanshihii soo helay buu askarigii igu soo noqday oo igu yiri, yarow soo raac raggan. Intii aanan meeshii ka tegin ayaan raggii iga waaweynaa waxay xiriir la yeesheen dad aanu xigto nahay
oo magaalada deganaa, kuwaas oo ay reerkii ugu sii dhiibeen badeecadihii ay naga sugayeen. waxaan ahaa nin da'yar oo reer baadiye ah, sheekada odayaashana ma aanan dhegaysan jirin laba sababood awgood. Tan hore, waxaan wax ka ilaalin jiray geela oo mararka qaarkood soomaba hoyan jirin. Marka aan soo hoydana, waxaan imaan jiray aniga oo daalan, dabadeedna waan istuuri jiray. Tan labaad, dhaqanka ayaa ii ogolaanayn inaan odayaasha la fadhiisto, oo miyiga odayaasha iyo dhalinyaradu caadi ahaan ma ay wada fadhiistaan ardaaga guryaha iyo golaha shirkaba. Markii aan askarta qortay, ayay indhihii ii furmeen oo aan wax badan dalka iyo dunidaba ka ogaaday. waxaan gadaal ka ogaaday in muddo 10 sano ah 3 xukun dalka isku bedeleen. Talyaaniga oo Soomaaliya gumaysi ku haysan jiray, waxaa jab weyni ka soo gaaray dagaalkii labaad, kaas oo keenay in 1941 dalka laga saaro. waxaa dabadeed dalka la wareegay maamulkii ciidan ee Britania, British Military. maamulkaas oo uu 1950 xilka kala wareegay maamulkii wasaayadda ee Talyaanigu. ummadaha qaramada midoobay shirkoodii ku saabsanaa sidii laga yeeli lahaa dalalkii uu Talyaanigu gumaysan jiray ka hor dagaalkii labaad ee dunida, Soomaaliya, Liibiya iyo Eritrea, waxay go'aansadeen in muddo 10 sano ah 1950 ilaa 1960 Soomaaliya wasaayad ahaan Talyaaniga loogu dhiibo. maamulkaas oo lagu magacaabi jiray maamulka wasaayadda Talyaaniga ee Soomaaliya. sidaas ayay ummadaha qaramada midoobay, iyaga oo ka duulaya dana siyaasadeed oo caalami ah, ayna u tixgelin codsigii hogaaminayay halgankii gobonimo doonka ee SYL, kaas oo diidanaa soo noqoshada Talyaaniga oo doonayay in muddo xadidan ay Soomaaliya hoos timaado 4 dowladood ee waaweyn: boqortooyada midowday ee Ingiriiska, midowga Sofiyeeti, Mareykanka iyo Faransiiska, si loo dabciyo kalsooni darradii dhex taalay Talyaaniga iyo Soomaalida. ummadaha midoobay waxay maamulka Talyaaniga feer dhigeen golo la tashi oo ka kooban Filibiin, Masar iyo dalka Haiti. Talyaanigu markii uu dalka ku soo noqday, wuxuu durba go'aansaday inuu dib u dhiso ciidamadii Soomaaliya oo dagaalkii labaad ku burburay. Tallaabadaas ayaa keentay imaatinka guddiga ciidanka ah oo gaalkacayo askarta looga qoranayo. sidaas bay iigu suurta gashay inaan ka mid noqdo ciidankii ugu horreeyay ee Soomaaliyada cusub yeelato. sida la og yahay, gumaysigu wuxuu Afrika ku haystay askar iyo odayaal, kuwaas oo dhinaca uga kharash yaraa ciidan iyo saraakiil rayid ah oo Yurub laga keeno oo deegaamada oo dhan la dhigo. dhinaca kalena aad iyo aad ugu habboonaa sidii uu xukunkiisa ugu faafi lahaa dalka oo dhan. habgumaysigaasi wuxuu ku caanbaxay xukun dadban. askarta iyo odayaasha xukunkaasi loo adeegsan jiray
waxay lahaayeen awood kooban, hase yeeshee iyaga ugu filnayd sidii ay uga muuqan lahaayeen rag xambaarsan awooddii gumaystaha oo ay tahay in laga baqo. Sidaa awgeed, dalalka Afrika, askarigu wuxuu leeyahay haybad, dadkuna waxay aaminsan yihiin inuu yahay wakiilka xukunka. Sidaas darteed, way ciseeyaan ciso baqdin ka dhalatay. xilligaas askarigu wuxuu tuulooyinka ka ahaa hogaamiye iyo macallin bulsho, aad ayayna u tixgelin jireen. Waxaan arki jirnay sida sharafta leh oo loo soo dhaweyn jiray, xoolahana loogu qali jiray markii ay kormeerka sameynayaan. Sidaa awgeed, raggaas waxaan uga jeeday in aanay ciidan ka sarreyn oo ay ka muunad weyn yihiin. culimmadii sida gaarka ah loo xurmeyn jiray in aan ka mid noqdo ciidan sharaftaas iyo awooddaas leh waxay iila mid ahayd xurmadda ugu sarreysa. walaacii hayay markii aan isqorayeyna wuu iga baaba'ay muddo gaaban kadib. askartii la qoray waxaa gaalkacyo laga soo saaray baabuur, iyaga oo loo soo qaaday dhinaca koonfurta. baabuurku wuxuu igu noqday mucjiso labaad, oo waanan weligay baabuur raacin, araggiisuna wuu igu yaraa. baabuurtana la saaray aad bay u gaabinayeen, jidadkuna aad ayay u xumaayeen, oo hadba tuulooyin iyo magaalooyin baana lagu nasinayay. markii aanu magaalada Beledweyne ku soo dhowaanay, waxaanu soo galnay dhul buuro gaagaaban leh oo aad u doogsaday. waxaanan ku dhaygagay dhir dhaadheer oo kayn ah iyo tog weyn oo ay biyo qulqulayaan, iyadoo aan roob da'ayn, cirkuna daruur ka muuqan, qorraxduna aad u kulushahay. waxaan raggii iga waaweynaa ka codsaday inay mucjisadan wax iga iftiimiyaan, iyaga laftooda ayaanse waxba igu dhaamin. waxay i xasuusiyeen inaanu isku meel ka nimid oo aanay weligood dhulkan arag ilaa aanu ka soo gaarnay Dhanaane oo ah meeshii naloo waday. waxaanu soo dhex marnay dhul aad uga duwan deegaankii aan ku soo barbaaray, oo aad uga dhir badan, uga biyo badan, ugana magaalooyin waaweyn. waxaana markii ugu horreysay arkay waddooyin laami ah, baabuur badan oo isdhaafaya, iyo daaro isa saaran oo dhaadheer. socod dheer iyo rafaad badan kadib, waxaanu soo gaarnay xerada tababarada ciidamada ee Dhanaane. xeradu waa meel ballaaran, waxaa ku yaala guryo la seexdo, qolal waaweyn oo ay kuraasi taalo oo wax lagu cuno, qolal wax lagu barto, bakhaarro wax lagu kaydsado, goobo kala duwan oo ciidamada lagu tababaro iyo wixii la mid ah. waxaana loo sheegay in meeshu tahay xeradii nalagu tababari lahaa. waxaanu meesha ugu nimid rag deegaanka ka soo jeeda oo iyaguna tababar loo keenay. waxaa la ii sheegay in xerada la dhisay sanadkii qarnigii lasoo dhaafay, waxaana loogu talagalay maxaabiistii laga soo qabtay dagaalkii uu Talyaanigu ku qaaday Itoobiya. markii la eego meesha go'doonka ah ee xeradu ku taal, waxaa la garan karaa inay ahayd meel ku habboon maxaabiis aad loo ilaalinayo. dhinaca xeebta, waxay Muqdisho xagga xeebta uga jirtaa 10 kiiloomitir, magaalada Markana xagga xeebta 50 kiiloomitir ayay u jirtaa. dhinac kasta si adag
ayay uga dhowrsanayd, mana fududayn in gaadiid maro. Inkasta oo ay xeradu xeebta ku taal, haddana waxay ku dhisan tahay meel adag oo badda ka sarreysa. Malaha waxaa sidaa loo yeelay in looga gaashaanto fatahaadda badda. Habeenkii nala keenay, waxaana la siiyey casho, waxaana loo sheegay inaanu meelahayaga iska seexano, oo waxaan diyaar ahayn qolalkii jiifka. Maalintii ku xigtayna waana la dejiyey oo waxaana la geeyey qolalkii aan seexan lahayn. Qolalka waxaa yaallo sariiro laba isku dul saaran, oo qof walba waxaa la tusay tii uu seexan lahaa. Qof walba waxaa la siiyey tirsi ama lambar iyo labiskii ciidanka. Habeenkaas waxaan seexanay qolalkii jiifka loogu talagalay. Waa markii ugu horreysay oo aan sariir ku seexdo, taas oo aan hadba dhinac isugu rogrogayay aniga oo ka baqaya inaan ka dhaco. Nolosha dhanaane waxay ahayd mid habaysan oo kala dambayn leh. Noloshaas tartiib tartiib baan ula qabsaday. Dharkii ciidanka baana loo geliyey, gaawatooyin cuntada lagu cuno iyo buraashado biyaha lagu qaato baa nin walba gaarkiisa loo siiyey. Halkaasna waxaa ku dhammaaday noloshii miyiga oo xeerada gacmaha la wada gelin jiray, iyo wax wada lahaanshihii wadareed. Subaxnimadii waxaana la kiciyey qorraxda oo aan soo bixin. Quraac baana la siiyey. 15 daqiiqadood kadibna kulligeen dibadda baana loo saaray. Koox baana loo safay. Dabadeedna waxaana la geeyey goob weyn oo meeshii ku taalay. Waxaa meeshii yimid dhowr nin oo Talyaani ah oo koox Soomaali ay la socotay. Nin Talyaani ah baa hadal noo soo jeediyey, waxaana ka afcelinayay nin Soomaali ah. Wuxuu noo sheegay in wixii maanta ka dambeeya tababarku noo bilaabmi doono, iyo waxa aanu tababarka ku qaadanayno, dhaqanka xerada iyo kala dambeynta ciidamada. Durba waxaan galnay heer awaamir keliya lagu soconayo. Waxaan la yaabay nolosha adag ee meesha ka jirta. Isku mar ayaa amar lagu kacaa, amar wax lagu cunaa, amar lagu seexdaa, amar saf lagu galaa, amar tababar lagu galaa, amar duruusta lagu qaataa. Tababarkii ciidamada ka sokow waxaana la bari jiray afka Talyaaniga, xisaabta iyo wixii la mida. Guud ahaan waxaan galnay nolol aad uga duwan tii xorta ahayd ee miyiga ka jirtay, taas oo qof walba wixii uu doono samayn jiray isagoo aan cid kale fasax uga qaadan. Ciidanka tababarka loo keenay waxaa ku jiray koox sidayda u da'yar oo sidayda u tabar yar. Muddadii hore kooxdaasi waxaa laga qaybgelin jiray tababarada fudfudud ee ciidamada. Markiise loo baxo tababaradaasi culus, waxaana lagu reebi jiray xerada. Anigu waxbaan iska baran jiray. Fursadaas baa ii suurtagelisay in aan qoraalka iyo akhriskaba kaga hormaro ciidankii tababarada ku jiray. Markii aan xerada ka helay nafaqo fiican iyo tababar joogto ah, xoogaygii iyo muuqaalkaygiiba way isbedeleen. Dabadeed waxaan bilaabay in aan ka qayb qaato tababaradii cuslaa oo aan hortii wax ka qaadan jirin. Kolkii uu tababarku noo dhammaaday, waxaa la ii soo bedelay gaalkacyo oo haddana la iiga bedelay Qardho, halkaas oo aan shaqadii ciidamada ka bilaabay. Galabtii waxaan wax ka baran jiray
dugsiyada caadiga ah ee magaalada ku yiil, taas oo aan ka gaaray meel fiican. 1953 waxaa la ii soo bedelay magaalada Muqdisho, halkaas oo aan shaqada ka sokow la watay waxbarashadeydii rayidka ahayd. Sidaa oo kale waxaan ka qayb qaatay waxbarasho heer sare ah oo degdeg ah, taas oo loogu talagalay saraakiisha loo qaadan doono ciidamada dawladda. Sida la ogyahay, waajibaadka Talyaaniga waxaa ka mid ahaa in sanad kasta uu maamulka Soomaaliya gaarsiiyo horumar la taaban karo, si markii la gaaro 1960 dalku isu maamuli karo, dhinac kasta isaga filnaan karo. Talyaanigu wuxuu 1954 ku dhaqaaqay inuu dalka ka sameeyo tiro-koob, kaas oo horseed u ahaa doorashooyin dalka ka dhaca. sidaas oo kale wuxuu bilaabay inuu saraakiil badan oo ciidan iyo rayidba ah tababar sare ugu qaado dalka Talyaaniga si loo dhiso howlwadeenno xirfad sare ku leh qaybaha kala duwan ee maamulka dawladda, kuwaas oo loogu talagalay in ay sanadka 1960 xilka kala wareegaan maamulka wasaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya. iyada oo uu qorshahaas laga duulayo ayaa 1954 aniga iyo 13 dhalinyaro ah oo ka tirsan ciidanka tababar layli sarkaal loogu diray dalka Talyaaniga, waxaana nala geeyay dugsiga ciidanka lugta ee Cassano di Roma, oo 4 kiiloomitir waqooyi ka xigta magaala madaxda Talyaaniga ee Roma, halkaas oo aanu muddo 2 sano ah tababar ku soo qaadanay. markii uu 1956 tababarkii noo dhammaaday, waxaana la siiyay xidigaha koowaad. tababarkaas waxaa ku soo baxay layli sargaalkii ugu darajo sareeyay. tababarkaas saraakiishii ila soo qaatay waxay kala ahaayeen Maxamed Cali Samatar, Salaad Gabayare Kadiye, Cabdalla Maxamed Faadil, Maxamed Jaamac Harbi, Xuseen Maxamed Sabriye, Maxamed Nuur Maxamed, Abuukar Xasan Weheliye, Ibraahim Rooble Warfaa, Maxamed Faarax Aydiid, Maxamed Cali Sharmaan, Cilmi Nuur Tarambi, Nuur Cadow Cali, Abuukar Gacal Muudey, iyo aniga oo Cabdilaahi Yuusufa. soo noqoshadii wuxuu ku soo beegmay waqti la baabi'iyay ciidan ahaan. baabi'inta ciidankaasi Talyaanigu wuxuu cudurdaar uga dhigay in Soomaaliya ay muddo dhow xorriyadda qaadan doonto oo aan miisaaniyadeedu qaadi karin doonin kharashka ciidankaas uga baahan yahay. arrintuna siyaasad kama marnayn. sida la ogyahay, Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeeyay dhul. Itoobiya waxay qabatay in arrimuhu ku eg yihiin xuduudaha labada dal oo aan rasmi loo kala qeexin, halka Soomaalidu qabtay in Itoobiya ay gumaysi ku haysato dhul Soomaaliyeed. waxaa Talyaaniga loogu xil saaray in uu Itoobiya kala xaajoodo arrimahaas, maxaa yeelay Soomaaliya waxay ku hoos jirtay wasaaradda Talyaaniga. Talyaaniguse arrintii meel waa gaarsiin waayay. marka waxaa dhici kartay in Talyaaniga iyo Itoobiya ay galeen heshiis qarsoodi ah oo looga horjeedsanayo in ay Soomaaliya ciidan yeelato. Talyaanigu wuxuu yiri Soomaaliya waxay u baahan tahay oo kaliya ciidan boolis ah. sida awgeed, markii aan dalka ku soo noqonayba waxaana lagu wareejiyay ciidanka booliska, kaas oo aanan wax tababar ah u lahayn. sidaa darteed waxaana la geeyay
akadeemiyada booliska xamar, halkaas oo lagu siiyay tababar soconayay 9 bilood laga bilaabo 1956. isbedelada siyaasadeed ee dalka ka socda waxay galeen marxalad cusub. Sanadkaas waxaa dalka lagu qabtay doorashadii ugu horeysay, taas oo ay ku guuleysatay SYL. baarlamaankii ugu horeeyay ee dalku yeeshana wuxuu fadhigiisu noqday caasimadda Soomaaliya. Halkaas kalfadhigoodii ugu horeeyay, xubnihii baarlamaanka ka tirsanaa waxay gudoomiye baarlamaan u doorteen mudane aadan cabdille cusmaan, halka cabdulaahi ciise loo doortay ra'iisul wasaare, kaas oo madax ka noqday xukuumaddii Soomaalida ka koobnayd ee Talyaanigu ku wareejiyay awooddii maamulka gudaha ee dalka 1957. waxaa la ii magacaabay taliyaha qayb hoosaadka booliska ee gobolka Banaadir. 1958 waxaan qaatay xidigtii labaad, isla markaana waxaa la ii dhiibay taliska qaybta booliska ee gobolka Jubbada Sare oo xaruntiisu ahayd magaalada Baydhabo. Halkaas waxaan ka soo bedelay Janan Daa'uud oo markaas ahaa gaashaanle. halkaas ha inoo joogto sheekadeennii halgan iyo hagardaamo, taariikhdii Cabdilaahi Yuusuf Axmed qaybteedii labaad.